Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maalin wanaagsan khayrtooda nagala xiriirta halkan waa barta YouTube-ka aad maalin walba nagala socotaan. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa boqor buur madow oo micnaha ka hadlay arrimaha Somaliland. Wuxuu aad u dhaliilay madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi. Marka wuxuu dhahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi diyaar uma aha in wadankan uu hormaro, diyaar uma aha inuu doorasho qabto. Marka meeshii uu galo ayaan ka galaynaa, dagaal ayaana diyaar u nahay. Marka haddii uu asaga ku talagalay inay Somaliland burburto, annagana waan diyaar u nahay dhahay. Sababtoo ma ogolo dhahay dowladnimo, ma ogolo doorasho. Aad iyo aad ayuuna u weeraray. Marka boqor buur madow waa nin caan ku ah, had koorna lagu xiray Somaliland ilaa 2 jeer oo hore. Marka hadda wuxuu ku kacsan yahay Muuse Biixi Cabdi, wuxuuna ku eedeynayaa inuu mucaaradka gardaran yahay, wuxuu ku eedeynayaa inuusan doorashada ogoleen, wuxuu ku eedeynayaa in Somaliland qalalaas uu ka abuuray, wuxuu ku eedeynayaa in shacabka Somaliland uu dhiigooda daadiyey, in xataa ay ka shaqaysan la'yihiin 24 saac shacabka dhibaato lagu hayo. Marka wuxuu yidhi boqor buur madow aad iyo aad ayaan uga xunnahay dhaqamada hadda uu sameynayo Muuse Biixi Cabdi, laakiin mid laga yeelayo ma aha. Muuse Biixi Cabdi wuxuu u diyaar garoobaa, anigana diyaar u nahay. Haddii uu dagaal diyaar u yahana diyaar loola yahay. Haddii uu ka baaqsan karo oo diyaar u yahay inuu ka baaqsadana diyaar u nahay. Laakiin saan u jeedno wuxuu dhahay Somaliland dhaqaalaheeda iyo dhaqankeeda iyo horumarkeeda midna Muuse Biixi Cabdi danka ma lahan. Wuxuu rabaa dhahay in shacabka Somaliland la dhibaateeyo, boob iyo xoog lagu muquuniyo, ciidamada loo adeegsado shacabka 24 saac. Waxaasoo dhan wuxuu dhahay wax horumar ah Muuse Biixi uu kala jeedo ma lahan. Dantiisa ayuu meesha ka arkaa. Shacabka Somaliland oo dhiigooda la daadiyana meel laguma gaarayo. Anagana wuxuu dhahay nafteena ayaan u horeynaa Somaliland sidii ay meel ku gaari lahayd. Haddii Muuse Biixi Cabdi uu ku talagalay inuusan wax wanaaga Somaliland u sameynin, anagana kuma talagelayno. Haddii xumaan uu doonayo xumaanta la doonaynaa. Sababtoo waa u dulqaadanay, wax badan aan u sheegnay, waan kulannay, waan isla hadalnay, waa naga ballan qaaday, wax badan oo naga ballan qaaday inuu sheeg wanaag sameyn doono, dowladnimada Somaliland qadarin doono. Laakiin wuu ka leexday jidkii, ballantiina wuu ka baxay. Mana ogolo in Somaliland ay lugeeda ku istaagto. Haddii asaga uusan diyaar u ahayn in Somaliland lugeeda ku istaagto, anagana diyaar uma nihin. Meeshii uu galo ayaan ka galaynaa. Dagaal hadduu diyaar u yahana dagaalaan diyaar u nahay. Marka boqor buur madow xaaladda meel xun ayuu geeyey. Sababtoo waxaa leeyahay mucaaradkii hadda asagaaba ka daranba, wixiisa ma qarsanayo, banaanka ayuu la yaalaa. Wuxuu leeyahay dagaal iyo wax walba waxay noqoto indhaha ayaan ka gelinaynaa Muuse Biixi Cabdi. Muuse Biixi Cabdi waxaa u hartay muddo hadda bil iyo 10 beri wax aan ka badnayn. Marka waqtigiisa aad ayuu u dhow yahay, November aad iyo aad u dhowdahay. Marka Muuse Biixi Cabdi wax qorshaha ugu jiro iyo wax oo hadda u diyaarsan oo doorasho ah ma jiraan. Dad fara badan ayaa ku eedeynayo Muuse Biixi Cabdi ugu talagalay inaysan doorashadu aysan dhicin oo waqtigeeda la gaaro kadibna oo waqti ku darsado. Haddii la diidana wixii diida oo xoog ku muquuniyo. Marka aad iyo aad arrintaas uga xun tahay. boqor buur madowna baryahan dhanba uu aamusnaa, laakiin hadda shalay ayuu hadlay. Wuxuu yidhi xaaladdu meel xun ay gaartay, mana laga aamusi karo. Waqtigii laga aamusi lahaana way soo dhaaftay, ma fahanti. Marka wuxuu leeyahay hadda haddii Somaliland uusan Muuse Biixi Cabdi dan u haynin, dowladnimadiina qadarin waaye, qor isu dhuubkii hore ee lagu shaqayn jiray, nin walba markuu nin yimaado nin kale u dhiibi jiray, hadduusan diyaar u ahayn, anagana diyaar uma nihin. Hadduu dagaal iyo xumaan diyaar u yahay, dagaalka xumaanka diyaar ula nahay. Marka haddii hadalka mees uu gaaro, meel xun ayay gaartay. Kama rajeynayo in Somaliland dagaal uu ka dhaco, kama rajeynayo in la isfar saaro ama dhibaato iyo banaanbax iyo dhiig kale uu ka dhaco. Laakiin Muuse Biixi Cabdi waxaan kula tali lahaa, maadaama lagu kacay meelo fara badan looga kacay, inuu hadda isqabto oo la hadlo dadka, xataa ugu yaraan u dhaho warkaalay aan isku imaano, doorashadii aan qabanno, sida wax ku hagaagi karaan. Idinka odayaasha iyo boqoradan qaylinaya kaalay iyo imaada, nimanka mucaaradka aan gogol dhigano, meel aan isugu imaano. Markii la isku yimaado waxba dhib ma jiro, dagaal ma jiro. War idinka miya ahaa, war doorashadii waqtigeeda ma la gaaraha, bil ma iga dhiman tahay, aan isku soo dhawaano, aan wada hadalno. Waqti cayiman oo doorashada lagu qaban karo oo idinkana guddigii wixii aan ku diyaarino oo isla ognahay aan qabsano. 8 bilood noqotaa, 6 bilood noqotaa, sanad noqotaa, aan qabsano, doorashadiina aan qabano. Okay, war xun ma ah. Marka Muuse Biixi Cabdi haddii uu taas diyaar u ahayn oo dadka inuu soo dhaweysto diyaar u ahayn, xumaan ayay noqonaysaa. Hadda ka hor Muqdisho sidoo kale waa la isqabsaday, waa ogeed. Maxaa Cabdullaahi Farmaajo badbaado qaran wareer ciidan markii xaaladdu xumaatay wuxuu dhahay aniga miya ahaa culeyskii dhibka, aniga miya ahaa waqtiga ku darsada ma keenaha, bis Roble ku wareejiyay doorashadii Roble meeshii uu ka bixiyay iyo qaabkii ay ku dhamaatay waa ognahay. Marka haddii wax aad ka maarmi weysid, haddaa xataa xilkaada ku weynaysid oo adiga aad meel cille soo istaagaysa, xataa shacabkaas Soomaaliyeed oo dhibaatada iyo dhiigooda daadanayo, dhibaatada soo gaarayso, ka fikir Somaliland u danay. Sababtoo adaa maanta madaxii ugu sarreeyay ah oo wadanka ugu sarreeya. Haddii maanta aad adiga tiraahdo xilkan anigaas ka haysanayo waxba ma tarayso, caawa hadday tii rabbi ku imaadana xil ma sii haysanaysid, Somaliland ma xukumaysid. Marka si sharaf leh xilka inaad dadka miiska usoo wada dhigtaa fiican. Haddaa ku guuleysatana iska wadato, haddaa ku guuleysan weysana ummadda u celiso. Shalaba ayaga ku dhiibtay,
in lagu naco oo dib dambe xil lagugu dhiiban ama Somaliland dhan ay ku nacdo oo meel walba lagaaga buuqo ama meel walba lagaa caayo oo 24 saac baraha bulshada lagu aflagaadeeyo wax waddan kuguma jirto. Hadda waxaa ku roon in wanaag aad samayso aad farta ka saarto xilkan ma ii dhiibteen mar kale ii dhiibta ama dadka kale aad rabtiin u dhiibta saasay ku fiican tahay. Ninka siyaasiga laakiin waxa ma garto siyaasiga waxaas ma garto hunguriga ayaa u daran haddii dadkiisa uu waayo waa dabada laadka gelinaa. Marka meelo fara badan ayaa la isku dayay Afrikaanka waliba dadka madowga ah Soomaali ha aadan ama wadamada kale Afrika ha aadan xilka in la isku dhajiyo way yaqaanaan. Waxaa arkaynay Ingiriiska meeqa ra'iisul wasaare iscasil iyadoo la iscasil wuxuu dhahay waajibaadkii aan gudan waayo ama barnaamijka baarlamaanka keenay waa laga diiday wuu iscasilay wasiiradiisa qaar kamid ah iscasilay asna wuu iscasilay. Theresa May soo martay waa ka baxday waxaa soo maray Tony Blair waa ka baxay Boris Johnson soo maray waa ka baxay hadda waxa waaye waa kan meesha marayso oo qofka hadda cusub hadana marka Soomaali lagama helayo inay qofkan dhahan war aniga waxa wadi waa meeshan ugu tagay lagama yaabo. Marka taas Somaliland iyo doorashadeeda waa kusoo laaban doonaa insha Allah wixii kasoo kordho laakiin waxaan rajeynaynaa in doorasho rasmi ah ka dhacdo fowdada iyo dagaalka la iska daayo. Haddii aan taas ka wareegno waxaan u wareegnaa dhankaasi magaalada Muqdisho bariyahan amni darro fara badan ayaa ka jirtay waatii howlgallo fara badan ciidamada NISA iyo ciidamada dowladda Soomaaliya ay wadeen waxay soo qabteen shalay bajaaj ay saarnaayeen dad ururka Al-Shabaab ka tirsan oo markaasi qaraxyada magaalada Muqdisho ka diyaariyo waxaa la leeyahay bajaajkii iyo ayagba la soo qabtay marka ay dhibaato geystaan waxay ugu talagaleen inay bajaaj ku baxsadaan laakiin gacanta ayaan kusoo dhignay dheheen hay'adda NISA war qoraal ay soo saartay waxay ku sheegtay in dadkaas iyo bajaajka macnaha ay ku baxsan rabeen la soo qabtay laakiin dadka intay yihiin maysan sheegin laakiin waxay sheegeen shabakad diyaarsan oo ururka Al-Shabaab ayaan gacanta ku dhignay. Inkastoo NISA aysan sheegin inta qof ay ahaayeen dadkaas laakiin waxay leeyihiin waa shabakad isku xiran waxayna u diyaarsanaayeen qaraxyada magaalada Muqdisho laga geysto hub ayayna wateen iyo waxay soo bandhigeen zaanad ay wateen marka waxay leeyihiin bajaaj ay u diyaarsaneed markay dhib geystaan bajaajka galaan oo ku baxsadaan marka muddo fara badan ay dhibaato shacabka u geysan jireen anagana waa ku raad joognay ugu dambeynna ku guuleysana gacanta ayaan kusoo dhignay marka waxay leeyihiin maadaama gacanta kusoo dhignay hay'adda CID da dambi baarista ayaa loo gudbiyey baaritaan ayaana lagu sameyn doonaa hubkoodii waxoodina kolba way cad yihiin oo isheeg hadda hubkii waa la soo bandhigaba laakiin wejiyadooda maysan soo bandhigin laakiin waxay sheegeen in dad shabakad isku xiran oo ururka Al-Shabaab la shaqeysa inay yihiin gobolka Banaadir dhibaato ka geysta gacmahana waxay ku haysteen hub fara badan iyo bastoolado iyo waxyaabo dadka ay ku dhibaateeyaan marka magaalada Muqdisho amnigeeda ee bariyahan oo iska weerarsanaa hay'adda NISA baaritaan iyo dabagal fara badan ayay ku heysay dadka shacabka qofkii ay ka shakiyaan xataa way iska qabanayaan magaalada Muqdisho cabsi fara badan maadaama ay jirto dadka kalsooni laguma qabo dadka dhalinyarada wax meelaha maraya kulli inta la qabtaa baaritaan iyo loo diraa marka waxay leeyihiin anaga tan hadda ku guuleysanay laakiin baaritaankeena waa baaritaan dheeraadna waa la sii wadaa oo hadda dabagal fara badan ay jiro waxay kale sheegeen inay jiraan rag kuwan la shaqeynayay oo weli ay ku raad joogaan oo maalmaha soo socdayna gacanta ku dhigan laga yaabo marka magaalada Muqdisho xaaladda halkaas ay maraya hay'adda NISA waxay ballan qaaday in magaalada Muqdisho amnigeeda ay sugi doonto waxaan ogaan doonaa wixii isbedelo maalmaha soo socdo inkastoo hadda ay ballan qaad fara badan dowladda u sameeyeen waan ogaan doonaa wixii kasoo kordho akhair oo ku maasantii idinkana la socodkiina barnaamijkeenan waxaan ka codsanayaa YouTube-kana subscribe iyo like share inaan la wadaagtaan tani kulanteen dambe xiiso waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.